madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamed ayaa goor xarunta madaxtooyada waxa uu kula kulmay qaar kamid ah xubnaha mucaaradka iyo sidoo kale madaxweynayaasha hore ee dalka. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamed ayaana arrintaani uga gol lahaa sida looga tashan lahaa duulaanka qaawan ee Israa'iil ay ku soo qaaday midnimada Soomaaliya kadib markii Soomaaliland ay aqoonsatay dawlad ka madax bannaan Soomaaliya. kulankan ayaa diiradda lagu saaraya xaaladda guud ee dalka gaar ahaan arrimaha la xiriira ilaalinta qarannimada midnimada dhuleed iyo sidoo kale ka jawaabista duulaankaasi Israa'iil ay ku soo qaaday madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu sheegay in xubnaha mucaaradku ay tala ku leeyihiin markii ay timaado in lagu soo xadgudbo gobonimada iyo sidoo kale dhulka Soomaaliya isagoona uga mahad celiyay dhammaan xubnaha mucaaradka inay ajiibeen yeeritaanka ugu yeeray xarunta madaxtooyada si looga arinsado arrinta ka soo korortay dalka isla markaana isku meel looga soo wada jeesan lahaa. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamed ayaa sidoo kale waxa uu la kulmay saacadii la soo dhaafay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya qaar kamid ah culimada Soomaaliyeed iyadoo kulankaasina uu barbar socday xiriir qadka telefoonada oo madaxweynuhu la yeelanayay qaar kamid ah madaxda caalamka iyo sidoo kale ururada caalami ah. wadahadalladaas oo dhammaantood basalka ku haya sida dawladda federaalka Soomaaliya ay uga xuntahay in Israa'iil ay ku soo xadgudubtay madax bannaanida Soomaaliya iyo in Somaliland ay kamid tahay dhulka Soomaaliyeed.